aad iyo aad baa umahadsan tahay adiga iyo baxda sheediyo dhuusamareeb arrintaasi waxaan u aragnaa inay tahay mid lagu qala dhibaatadii ay ka geysteen kooxdaas muqdisho laga soo diray oo ay adeegsanayaan madaxda tadii ay geysteen magaalada dhuusamareeb iyo ka dhacay magaaladaasi oo ay rabaan dadka inay meel kale u jiheeyaan annaga wax wada hadal ah oo aan la yeelanayno dhowr jeerna waa sheegna ma jirto wadahadal oo nooga xirana ma jirto haddaan cid la hadlayno kuwii xamar ka soo diray ayaan la hadlaynaa laakiin waxa weeye wax wada hadaloo noo dhexeeya iyo iyaga iyo kuwii soo diray midna ma jirto taasoo kuu xaqiijinaya marka madaxweyne ku-xigeenka hadalkuu afhayeena shaaciyey oo uu leeyahay madaxweyne xaaf iyo annagoo galmuduga waa wada hadalnay oo waxba isla meel dhignay waxba kama jiraan miya aniga madaxweyne ku-xigeen ma aqoonsan madaxweyne ku-xigeenka galmudug wuxuu joogaa magaalada gaalkacyo waana sheekh ibraahim guuraye arrintaas ay sheeganayaan kooxdaasi ku fasilantay wixii deegaanka ay ka wadeen oo ay rabeen inay maaragtay dadka ku mashquuliyaan in ay been abuur sameeyaan waxaad ogtahay magaalada dhuusamareeb dagaalkii ka dhacay dhowrka beri socday ilaa iyo hadda mas-uuliyadiisa ayaga unbay saaran tahay ayaga iyo ciidamadii ay dagaalka geliyeen dad tiro badan oo rayida ayaa ku dhintay culimo ayaa lagu ihaanaystay oo xarumahoodii madaasiic lagu garaacay ciidanka sidaas loo adeegsanayana waa ciidankii loogu talagalay in argixisa la dagaalamaan adigoo og in maaragtay culummadani ay horseed u ahaayeen in deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka galguduud shabaab iyadoo aan cid ka hor imaan karta jirin in ay hoggaanka u qabteen oo dadkii ay ka xoreeyeen deegaano badan oo ay dhibaato ka wadeen marka dambigaas weyn ee ay galeen ayay ku qarinayaan siday ila tahay wararkan oo ah xaaf baan heshiis la galnay madaxweyne xaaf wuu caddeeyey mawqifkiisa inuusan wax heshiis ah uusan la gelaynin kooxdan muqdisho laga keenay oo dawladda federaalka ay soo adeegsatay haddii cid lagala hadlayana waxa weeye waxaan kala hadlaynaa kuwii soo dirsaday marka wax wada hadaloo idnaba oo ayaga aan la leenahay kuwa dhuusamareeb jooga ma jirto waa tahay marka dawladda federaalka ka waran iyada dhankeeda wax wada hadala oo u socda iyo iyaga iyo madaxweynaha ayaga waxaanu kala hadli karnaa oo maaragtay in ay dadkan ay soo khaldeen oo dhibaatada jariimadana ka geystay deegaanka galmudug deegaanada galmudug in ay dib oola laabtaan intaas waa kala hadli karnaa laakiin wax kaloo wada hadal ah ama maaragtay aqoonsi ama maaragtay inaan qarino waxyaabaha dhibaatada ay geysanayeen waxa weeye arrintaasi arrin naga suuro gasho maaha ka madaxtooye ahaan sideebaad u aragtaan colaadan magaalada dhuusamareeb siiba dagaalkii ka dhacay magaaladan maalin ka hor afhayeena alaas waa ka hadalnay cidda ka dambaysa waa sheegnay caalamkana waa u gudbinay in maaragtay jariimadaasi cidda leh lagu ciqaabo waxaana filayaa maalin in maxkamad loo soo taagi doono dadkii dembiyadaas ka geystay magaalada dhuusamareeb oo dadka shacabka laayay oo maatadii iyo culummadii deegaanadii ay joogeen ama xarumihii ay dhuusamareeb ka deganaayeen madaasiicda kula dhacay ciidanka loo adeegsanayana ay yihiin ciidan lagu sheegay ciidan qaran balse aan ahayn oo aad ka arki kartay mas-uuliyad daradooda wixii shalay figeelyadii shalay lagu shaacinayay baraha bulshada oo maaragtay culummada lagu aflagaadeynayay marka annagu waxaan aaminsannahay dembigii halkaasi ka dhacay oo culummadii iyo dadkii kaleo deegaankaha lagu waxyeeleeyey in heer maxkamadeed ay tegi doonto oo lagula xisaabtami doono ay tahayn arrin laysaga hari doono mas-uuliyaddana waxaa iskale villa soomaaliya madaxda joogta oo iyagoo amarkaan bixiyey kuwan ay usoo adeegsadeen ayagoo isticmaalaya marka waa tahay laysaga hari doono ma waxaa ii sheegtay in beesha caalamkan aad gaarsiiseen oo fariin aad u dirteen fariintaasi maxaa weeye arrintaasi waxay ahayd in ciidamadii ay u tababareen gaar ahaan soomaaliya waxaad ogtahay dawlado badan ayaa dhinaca ciidanka ka taageera ciidankii ay u tababareen gaar ahaan dawladaha maraykanka iyo turkiga in
ay lagula dagaalamo dhaqaalahana ay ku siiyaan in lagula dagaalamo argagixisada gaar ahaan ururada argagixisada ee dalka ka jira in loo adeegsanayo dadkii shacabka ee reer galmudug iyo culimmadoodii taasna la rabo in maaragtay la iskala xisaabtamo dembigaas ay geysanayaan oo ay maaragtay ka geysanayaan magaalada dhuusamareeb iyo gurceel intaba waana u tacsiyeynay dadkii halkaasi ku waxyeeloobay in dadkii dhaawacmayna ilaahay inuu booga dhayo marka arrintaasi maahan arrin la isaga hari doono dhiigga shacabka la daadiyey iyo culimmada la yahaanaystay oo haddana maaragtay la dhibaateeyey iyaga laftooda oo naftooda in la dilo culimmadii u ahaa derbiga oo dagaalamay in maanta meeshii shabaab oo u jira dhuusamareeb 60 kilomitr in ayagii lala dagaalamo waxay la micno tahay shabaab iyo inaysan kala fogeyn qolyahaas dhuusamareeb jooga oo ay cadowga keliya ay leeyihiin culimmada ahlusunna waa tahay dabcan waxa ay sheegtay in wax wada hadalla ah galmudug xilligan iyo madaxweynahaba aanay u socon marka dhinaca dawladda federaalka haddii aynu aadno wax wada hadalla ah oo xilligan dawladda iyo madaxweyne xaaf u socda miyaa jira wax wada hadal hadda ilaa hadda socda ma jiro laakiin fariimaan u dirnay inay dhibaatada ka daayaan ay geysanayaan magaalada dhuusamareeb laakiin wada hadal toosa oo hadda socda oo kuu sheegay ma jiro shalay magaaladan dhuusamareeb hogaankii ahlusunna waljamaaca waa ay ka hadleen mowqif siyaasadeed oo cusub bay ka shaaciyeen arrintaas sideebay idinkula muuqataa wallahi arrintaas waa arrimahan hadda kaala hadlayo dhibaatada laga geystay dhuusamareeb iyo culimmada intaba arrin waxa weeye xisaabteeda waktigeeda la geli doono marka arrintaasi waxa weeye arrin aan inaba caadi ahayn oo maaragtay jariimo loogu geysto dadkii shacabka iyo culimmadii intaba marka arrintaasi waxa weeye waa lagala xisaabtami doonaa ciddii geystay dhibaatadaas waa taa ugu dambeyn marka maxaa soo jeedinaysaa oo ku aadan arrimaha colaadaha oo kale iyo khilaafyada gacanka hadalka gaaray ee magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel afhayeene waxaan ugu baaqayaa dadka in maaragtay colaad xilligeedii lama joogo xilligii afka lagu wada hadla ayaa la joogaa in maaragtay arrintaasi aysan mar dambe dib dambe u dhicin wixii dhacayna waa la iskala xisaabtami doonaa arrintaas waxa weeye arrin aan ka xunnahay weeye waxaana filayaa inaysan dib dambe usoo laaban doonin ayadana laga daba tegi doono marka intaasaan baaqeeda kusoo koobaya aad baa umahadsan